Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Walaalahey qaaliga ah meel walba adduunka joogtaan waan idin salaamayaa. Waa walaashiin Marisa oo mar kale nii wato fiideo qurux badan. Maanta halkan waxaan ku sameysanaynaa rooti dhexda laga gelinayo jiis amba jubna, si alaala sidaa u taqaanidba. Walaalahey qaaliga ah sidaan u sameynayo ila daawada. Walaalahey qaaliga ah rooti farmaajaheeni sidaa u sameynayo ila daawada ayaan leeyahay. Meeshaan waxaa ku haystaa 3 qaanto oo subag ah, biyo qandac ah ayaa ku haystaa, bakeeri biyo qandac ah ku jiro. Meeshaan waxaa ku haystaa 3 qaanto oo canboor ah, 3 qaanto oo sokor ah, qaanto leebita ah. Intan waxaa ugu jiro bakeeri oo buuxo oo bur ah. Hadda bakeeriga kale ayaan ku shubanaynaa. 2 bakeeri oo bur ah ayaa isticmaalayaa walaalahey qaaliga ah. Bakeerigii labaad ayaan ku shubtay, hore bakeeri ayaa ugu jira 2 bakeeri oo bur ah ayaa meeshaas ku haystaa. Madartaan waxaan ku darsanayaa qaanto leebita ah oo buuxdo. Meeshaan kale waxaa ku haystaa sokorteeni ayaan ku shubanayaa 3 qaanto oo sokor ah. Waxaan kaloo ku shubanayaa 3 qaanto oo canboor ah. Meesha ayaa ku soo diyaarsaday walaalahey qaaliga ah. Marka waa isku labayaa, si fiican ayaa isku dhex gelinayaa. Rootigan waa rooti nafaqo badan maasha Allah, aad iyo aad u fiican. Meeshaan kale waxaa ku haystaa 3 qaanto oo subag aheed oo ku darsanayaa. 3 qaanto subag marka ku daro biyihii qandac ahaa oo ii diyaarsanayeen bakeerigii ugu jira ayaan ku shubanayaa. Walaalahey qaaliga ah ila socda sidaa u sameynayo. Kiskis ayaa u shubanayaa, muku wada shubayo qaantada ayaa ka gashanayaa. Sidaa u sameynayo ila socda hee, aad iyo aad ay u mahadsantihiin dhiirigelinta mar walba ii dhiirigelisaan. Rooti nafaqo badan caruurta, dadka waaweyn intaba u fiican maasha Allah. Rootiga banaanka lagu sameeyo aan ka maarmi doontid weeyaan. Marka walaalahey qaaliga ah qaantada si fiican gacanta ayaa la galayaa, qaantada waa ka saaraa si fiican marka uu qoso kabacdi waan daboolayaa, waana isku soo naqanaynaa ilaa uu ka qamiirayo. sidaas ula socda. aad iyo aad ay u mahadsantihiin daawashada daawanaysaan. qaaliga ah meeshaan waxaa ku haystaa jubna ama farmaajo, si alaala sidaa u taqaanid. hadirtaani ayaan furfuranayaa intuu noogu soo qamiirayo burkeena. marka xabad xabad ayaa u furfuranaya, waa jarjaranayaa. sidaa u sameynayo waa u jarjaranayo ila socda walaalahey qaaliga ah. جنة الدنيا يا أمي وتحت أقدامك مناي، كل نبضة تحكي يما إيها حبك يا غلاي. جنة الدنيا يا أمي وتحت أقدامك مناي، كل نبضة تحكي يما إيها حبك يا غلاي. كيف بوصف لك شعوري صدقي حبري يا وفاي، مهما رتبت المعاني تاهي حرفي يا سناي. كيف بوصف لك شعوري وصدقي حبري يا وفاي، مهما رتبت المعاني تاهي حرفي يا سناي. جنة الدنيا جنة الدنيا جنة الدنيا جنة الدنيا يا أمي. walaalahey qaaliga ah dartaani burkeeni wuu noo qamiiray amba wuu noo qaxay maasha Allah, soft waayaan, aad ayuu u jilc badan yahay. dartaani qamiirka ayaa gadaminayaa oo isku wada celcelinaya inuu qamiirka ka baaba'o ayaa rabaa. marka dartaan waxaan sameynayaa waa kuusaya, dhexda ayaa ka fidinayaa jubnadeeni amba jiiskeeni amba farmaajaheeni, qof alaala qof sida u yaqaano ayaan dhexda u gelinayaa farmaajaheeni. marka waa isku kuusayaa kadib sidaan sameynayo ila daawada walaalahey qaaliga ah. markaasaan ku soo wada sameeyo kabacdi waxaan sameynayaa wax yar ayaa banaanka dhigayaa sidoo qamiir fiican oo u noqdo oo wax yar markuu soo qaxo kabacdi ovenka ayaa gelinayaa. sidaas igula socda walaalahey qaaliga aad iyo aad ay u mahadsantihiin daawashada daawanaysaan fiideogan. تحت أقدامك مناي، كل نبضة
جنة الدنيا يا أمي وتحت أقدامك مناي كل نبضة تحكي يما إيها حبك يا غلاي جنة الدنيا يا أمي تحت أقدامك مناي كل نبضة تحكي يما إيها حبك يا غلاي كيف بوصف لك شعوري صدقي حبري يا وفاي مهما رتبت المعاني تاهي حرفي يا سناي كيف بوصف لك شعوري وصدقي حبري يا وفاي مهما رتبت المعاني تهي حرفي يا سناي جنة الدنيا جنة الدنيا جنة الدنيا جنة الدنيا يا أمي انت صبحي انت ليلي انت ارضي مع سماي انت عطري انت حبي انت انفاسك شذاي انت صبح walaalahay qaaliga ah meeshan waxaa ku haystaa digsigii hadda waxaa ku shubanayaa bakeeri sokor bakeeri buuxo sokor ayaa ku shubtay haddana waxaan ku shubanayaa bakeeri buuxo oo biyo waxaan ku darsanayaa kis yar oo heel marka si fiican igu soo karto waxaa ka rabaa roodiga qayb ka mid inaan marsho sokorta iyo biyaha soo dhaldhalaaliyay qayb kalena caano macaan ayaan mari rabaa korka ka mari rabaa markay walaalahay qaaliga ila socda ayaan leeyahay soo noqonay biyihii sokorta si fiican ayay ugu kareen hadda waxaan ku darsanayaa kis yar oo liin dhanaan liindhanaanta dhanaan yar ayay ii siinaysaa kabacdina waan miirayaa sidaas ula socda walaalahay qaaliga bakeeriga ku miir lahaa soo diyaarsaday hadda waan miirayaa qashinka sida uu haro ayaa rabaa hilkii waxyaabahaas leedinta ku miira inay iga harto biyihii sokorta macaanka ahaa hadda meesha walaalahay qaaliga hadartaan rootigeeni wuu noo soo qamiiray wax yar ayuu banaanka yaalay marka jubnada dhexda ka galiyay hadartaan hal xabo oo kun kis yar oo caano ayaa isku qaraacaya walaalahay qaaliga kabacdina korka ayaan ka marinayaa rootiga hadda waxaan ku darsanayaa caanihii kis yar ka isticmaalayo marka walaalahay qaaliga si fiican ayaa isku qaraacaya caanaha iyo ukunta kadibna waxaan sameynayaa rootigeeni ayaa korka ka marinayaa sidaas ula socda walaalahay qaaliga rootiga waxay siinaysaa kalar qurux badan ayay ii siinaysaa marka taawasho aan ayaan leeyahay جنة الدنيا يا أمي وتحت أقدامك مناي كل نبضة تحكي يما إيها حبك يا غلاي جنة الدنيا يا أمي تحت أقدامك مناي كل نبضة تحكي يما إيها حبك يا غلاي كيف بوصف لك شعور qaaliga hadartaani ofinka ayaan kashanaynaa waxaan ku dayahaynaa 200 oo digri marka 200 digri noo dhamaato kabacdi ayaa isku soo noqonaynaa rootigeeni sida wada jeedaan ee quruxda badan ayaa noogu soo baxday qayb caadi ayaa cunaynaa qayb sokortii dhalaalinaynay ayaan kor ka marsanaynaa qaybna caano macaan waxalaalo waxa haystid guriga ku yaalo ayaa ku sameysan kartaa walaalahay qaaliga ما شاء الله هدرتان وصو سميسانينا وصو ديار كروينا isla socod wanaagsan ayaan leeyahay qaybtaani sokorta dhalaalinayay ayaa kor ka marsaday qaybtaani caano macaan ayaan kor ka marsaday ma sha Allah aad iyo aad ayuu u macaan badan yahay lagama sheekeen karo qofkii cuna ayaa ka sheekeen karo macaanta ay leedahay qofkii caano macaanka saayid u rabo korka ayuu ugu shuban karaa qoftii sokorta saayid u rabtana dhalaalkeedana korka ayuu ugu shuban kartaa qof walba iyo dooqeeda waaye qayb kale waa bila sokor bila caano macaan laan
maasha allah dhaxda jumladii ayaa ugu jirto aad iyo aad ayuu macaan badan yahay lagama sheekeyn karo walaalihii qaaliga ah caafimaad igula cuna aad iyo aad ay u mahadsantihiin daawashada daawanaysaan fiidiyogan walaalihii qaaliga ah waxaan leeyahay guul iyo gowanimo ayaan igaga tegayaa insha allah kheyr badan ayaan rajeynayaa fiidiyogan iyo fiidiyowga ku xigay insha allah باي السلام عليكم.